السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرير سومالان iyo umada islaamka waa idin salaamay meel kasto ay joogtaanba. Waxaan doonayaa inaan wax yar ka iraahdo heshiiska ilaa shalay la wadwaday ee Somaliland iyo u dhaxeeyay Ethiopia iyo huwantii iyo reer Soomaaliya oo ilmada iyo xaaska daadinaya ayagoo iska dhigaya inay Somaliland macni wax ka khaldamay ay ka xun yihiin, laakiin waxay ka xun yihiin ee wadnaha gooyay waxay isleeyihiin Somaliland bay wax u kordheen oo itiraaf bay helaysaa. Marka ayagu waa taatay ka xun yihiin ka barooranayaan wax inaga xumaaday u barooran mayaan. Marka dadka waxaan leeyahay walaalayaal dalka iyaga anaga ku filan idinku kiina ilaashada, idinku dalka intiina ilaashada anaga ku filan. ta kale waxa weeyaan horta anigu heshiiska Somaliland iyo Ethiopia dhexmaray waan soo dhaweynaya dhowr jeer horaan ka hadlay anigu waxay weey Ethiopia in lala tago in loo tago lala hadlo la weydiiyo waxay doonayaan iyo waxaynu doonayno la iswaafajiyo oo aan la inagu xuxin hadda siday baraha bulshada ka wada reer Soomaaliya iyo madaxdooda ay ka qaylinayaan xuxda Ethiopia way idin cunaysaa aan ay la oranine inaynu inagu dadka la hadallo waa dad aynu wada deganahay waa dad aynu xiriir leenahay waa dad aynaan kala maarmayn way inoo baahan inana waynu u baahanay inaynu wada shaqaysano dantooda ay gaadhaan inateena gaadhno waa muhiim weey. Laakiin waxaan meesha ku jirin hadalkii madaxweynuhu haddaanu halmaan ahayn waayo waxaan anigu maqlayay uu yiri intaas oo kiiloomitir baanu Ethiopia siinay. de markaas siini meesha inay timaado maaha siin iyo ka iibid wax aqliga galaya maaha, laakiin waxaan samayn karnaa inaynu ka kirayno. waxaan aaminsanahay taa kiradu inay sax tahay haddii laga kireeyana waxaan leeyahay anigu waa sax weeye. konton sanad sheegaysaan waxaan leeyahay 100 sano laga kireeyo inaguna itiraaf aynu dhaafsano ayaguna kiro ha helaan iyo bad ay wax kala soo degaan. laakiin iyadoo kiro xiitaa tahay waxaynu u baahanay taxadir fara badan ikabaan degid fara badan iyo in la isaga yimaado laga wada hadlo bulshada reer Somaliland loo soo bandhigo madaxda kale ee reer Somaliland loo soo bandhigo aqoonyahanka reer Somaliland loo soo bandhigo waxa la saxeexay in qodob loo akhriyo oo qodob looga baaraantigo ayaynu u baahanay. waayo waliba xiitaan waxaan leeyahay in lagu daro weeye inaynu inaguna ka bixi karno balanta ayaguna ay ka bixi karaan. haddii biritoore aynu isafkaran weyno waa inaynu heli karno inaynu ka bixi karno contractga ayaguna ay ka bixi karaan oo aanay sandulle iyo qasab inagu noqon macni inay kontonka sare iska joogaan. hadday dee doonaana waa isaguna waa dowlad Afrikaana ay macni hadhowta inoola yimaadaan sheeko kale inaynu kuwa meesha booska ka inaga ahaato inaynu kuwa inagu loo martida yahay aynu nahay hasa ahaatee ay si xor ah oo balanta la galay ay u isticmaal kar. laakiin dalka aynu inagu leenahay waa biyaheeni waa dalkeeni haddaynu cid siinayno waxaynu ugu soo dagaalamayni bad iyo birigu waa isku mid maxaynu ugu soo dhimanayni haddaynu cid siinayno. marka sida hawsha yar aanu u malayn maayo in waxba la siiyay malayn maayo suurtagal ma waxa weeye muhiimadu waxa weeye inaynu kiraysano badeeni ka faa'iidno dhaqaale ahaan ka faa'iidno itiraaf. reer Soomaaliya waxay leeyihiin Ethiopia 100 sanadood bay daydaysay maxaan ku dhahdaa bad waxa weeye Ethiopia 100 sanadood bay daydaysay anaguna 30 sanadood baan itiraaf daydayn. marka waa isku dangaaraynaa laakiin isku dangaarka ha laga fiirsado madaxduna dadka ha la wadaagto waxay 2 iyo qof iyo 3 saxiixi karaan maaha waxay tahay umadu inay ka baaraan degaan waa inaynu markaynu doono inagu aynu oran karno waa ka baxnay kontaraadkii haddii aynu danteena ka arki weyno waa inaynu dhaafsano wax muhiim
معني دي wax ka muhiimsan inaga hadda wax itiraafka inoogu muhiimsan waxaynu helo dhaqaalu waa meeshiisa laakiin waa inaynu helo ta kale waa inaynu balama kale la galo oo matalan kalluunkan uu suuqa Ethiopia uu ahaan karo in macnihii inagu aynu xaq u yeelan karno ay macni xaq koobad inagu u leenayno kalluunkeena geyno Ethiopia waxyaabo fara badan oo kale ayaa soo hoos galay itiraafka waxyaabo badan oo kale ayaynu ka faa'iidi karnaa hadii maxaan ku iraahday si sax ah loo fikiro laakiin iyo siin midna meesha inay soo gasho maaha ummadda reer Soomaaliland inay taa qaadato maaha. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.